بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا بساعة بيال سوى المغل كي جرين سوغاري مالو ناكسن وحنا جلس عطان رويال تالنت سبورتس قد بدأ ما أنت يارا وين أنت كجبوا دونتان وحكمي ده لامبركا وتياغا الكانتر حرام دون أولو قاضي ليفربول أو شيء شخصي على جارت تياغا الكانتر واحد كله مغلي دونتان فيرجيل فان ديج أو كهل ما شاء تياغا الكانتر يو واحد كله كجبوا دونتان أرسنال أو شيء كيس الدحات أمري تجاوز عافي ماد وحين كك أنت دلك فرانسيسكا waatahay saaxiibayaal aan ku bilownay lambarka Thiago Alcantara oo xiran doona kooxda Liverpool oo haatan la sii ogaadayba kooxda Liverpool ayaa ugu dambeyntii Bayern Munich kala heshiisay saxiixa xidiga qadka dhexe ee Thiago Alcantara kaas oo noqday saxiixadii labaad ee kooxda suuqa xagaagan saxaafiyada aadka ugu dhow kooxda Liverpool Melissa Reedy ayaa shaaca ka qaaday faahfaahin lagu heshiiyay saxiixa xidiga qadka dhexe Reedy ayaa boggeeda Twitter-ka ku soo qortay in Bayern Munich iyo Liverpool ugu dambeyn ay heshiis rasmi ah ay gaareen saxiixa xidiga qadka dhexe Thiago Alcantara. Thiago oo horey heshiis shakhsiyeed ula gaaray Liverpool ayaa qalinka ugu duugay heshiis 4 sano ah ee uu ku sii joogi doono garoonka Anfield ee ku ciyaarta kooxda Liverpool. Wararka ayaa intaasi waxa ay ku sii darayaan xidiga 29 jirka kooxda Liverpool lambarka uu xiran doono haatan kadib markii uu Diego Lovren uu ka tagay kooxda ayaa waxaa lagu sharfay ama lagu soo dhaweyn doonaa lambarka 6aad oo kooxda uu xiran doono saaxiibayaal anaadna qodobka kale ee barnaamijka Arsenal ayaa heshiiskeedii 3aad oo tijaabo caafimaad u maray kooxda Arsenal ee horyaalka France ayay ka soo wadatay ayaa leeyahay walaalaha kooxda Dijon aan yiraahdo Ronaldo ayaa maanta oo khamiis ah tijaabo caafimaad u maray kooxda Arsenal sida ay sheegtay wararku sheegayaan Gunners ayaa 1.5 milyan euro kala soo saxiixatay xidiga reer France waxa ayna haatan qarka u saaran tahay dhamaystirka heshiiskiisa Arsenal ayaa si degdeg ah Ronaldo ugu calamatay ama ugu caleema saartay bedelka tooska ee golhaye Elena Martini kaas oo 20 milyan oo euro ugu soo biiray kooxda Aston Villa sida laga soo xigtay wargeyska Telegraph ayaa sheegay waata inta barnaamijkan mid lacayna ku kulmi doono waxaan ka tagay siyaasi nabadgelyo saaxiibayaal janaalka subscribe share gambaleelkana furaasi aad ula socoto muuqaaladeena oo ku mahadsantahay daawashada muuqaalkaada